kormeerkan ujeedkiisu ahaa u kurgalida xaaladda guud ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala degmada Balcad iyo nawaaxigeeda ayaa taliyaha ciidanka dhulka waxa uu ku tagay xeryaha ciidamada xoogga dalka ay ku lahaan jireen degmadaasi waxaana kormeerka taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guute Maxamed Tahliil Biixi ka qayb ahaa taliyaha qaybta 27 General Ahmed Maxamed Cali Sowtre dishay Israa'iil kale xerooyinka Hilweyne deegaan leh ee difaacyada hareeraha kaga yaala degmada Balcad iyo warshadii dharka ee Balcad ayuu mid u kormeeray wuxuuna halkaasi kula kulmay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo u taagnaa gudashada waajibaadka uu qaranka u igmaday xisbiga iyagu talada iyadu waa dalka inaan difaacno ummadda Soomaaliyeed inaan difaacno waa intaas anaga xisbi noo ah intaas mabda' noo ah